Ducada murugta iyo deynta uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam bixiyay ayaa waxaan soo geliyay baraha bulshada. Waxaa daawatay in ka badan malaayiin qof. Dad aad u badan ayaa ila soo xiriiray ayagoo dhahaya waxaan akhriyay ducada Alle, murugteeda iyo dhibaato walbo i haysatay wuu iga qaaday Alle. Maalin walbana waan akhriyaa, nolosheeduna way ka sii qurux badnaatay sidii hore. Ducadaas oo ah maalin ayaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo galay masjidka. Wuxuu arkay asxaabi Ansaari ah oo fadhiya masaajidka. Wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam weydiiyay asxaabigii, maxaa ku fadhiisay masaajidka? Xilligan ma aha waqtigii salaada. Asxaabigii wuxuu yiri, Rasuulka Ilaahayow, murugo ayaa i taabatay, deyntuna way igu badatay. Waxa uu dhahay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ma ku baraa duco ka kor qaadaysa murugada? Wuxuu dhahay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, ma ku baraa duco haddii aad akhriso Ilaahay kaa qaadayo murugada, deyntana kaa gudaayo? Asxaabigii wuxuu yiri, haa Rasuulka Ilaahayow i bar. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay, waxaa dhahdaa subaxdii iyo galabtii, اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. saxaabigii wuxuu dhahay waan akhriyay ducadii, Ilaahayna waa iga dulqaaday murugadii aan dareemayay, wuuna iga bixiyay deyntii